عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channel كان عبد الله شو. سبسكرايب لايك and share. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعن وناكس أصحابتك كسو دوادا channel كان عبد الله شو. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa sidee loo soo muuji karaa mesajyada WhatsApp-kaaga oo qofkii kuu soo diray la delete gareeyay. Kusoo dhawaada casharkeena maanta si aad u soo muujiso mesajyadii oo kuu soo diray qofkii. tusaale camal message ayaa kuu soo diray qofkii message-ka kuu soo diray ayuu deleeday. sidee loo soo muuji karaa message-kaas oo qofka kuu soo diray. haddaba si aad taas u ogaato nala soco abka kaliya ay kuu fududeyn karo inaad ogaato message-kii qofkii kuu soo diray haddana uu delete gareeyay. si aad u soo muujiso waxaa la yiraahdaa note save-kan waxaad ka soo degsan kartaa Play Store-ka oo ah meesha laga soo dejisto apps-ka waxyaala loo yaqaano note save. marka aad ku dhafatid waxa kuu soo baxaya note save-ka waxyaalo kuu qaban karo xakimad statusyada oo qofka asxaabtaada waa soo degsan kartaa haddii aad ka heshay waxyaalo haddii video yihiin haddii pictures yihiin. waxa kaloo kuu qaban karaa message ayaa kuu soo diray qofkii isla markiiba message walba oo ku soo dhaco WhatsApp-kaaga wuxuu galayaa application-ka la yiraahdo note save-kan ayaad ka arki kartaa. markii aad ka aragtid message-kii qofkii kuu soo diray haddana uu dib ka deleeday waxaad ka arki kartaa barnaamijkan la yiraahdo note save. marka aad soo degsato banaanka markuu kuu yimaado waxaad ku dhehaysaa allow. waxaan ognahay inuu note save-ka wax noo qaban doono waxyaalo badan si aan soo sheegnay. note save-ka kadib calaamadaas ayaa saaraysaa allow ayaa dhehaysaa. note save-ka waxyaalo kuu qaban karo xakimad hore u sheegnay statuska oo asxaabtaada waad soo degsan kartaa. informationada oo qof kuu soo diray haddii qofkii dib ka deleeday waad arki kartaa. muhiimadda waxaa qof wuxuu kuu soo diray sawir delete waxyaalo kuu qaban kara delete wixii all notifications will be deleted oo uu kuu soo muuji karaa. waxyaalo kale waa kana new notification hadduu hadda WhatsApp-kii ku soo dhaco new message inta ayuu soo gelayaa. sidaas daraadeed isla markaa waa ka daalac karaa waa arki karaa xitaa hadduu uu deleeday qofkii soo diray. hadda qofkaas iyo soo diran warse application-kan wuxuu ka caawinayaa chatting-ka asxaabta kuu soo dirto ee dib u deleeyaan message-ka lagu soo diro wuu kuu soo muuji karaa. marka waxaan dhihi lahaa insha Allah inaad ka hesheen. kusoo dhawaada channel-kan Cabdalla Show. subscribe like iyo share tan lagu caawiyo. don't forget to subscribe our channel. more videos inshallah. welcome to Abdalla Show.